masaafo waxay soo baxday bishii 6 2008 bishii 7 6deedii ayay soo baxday 2008 halkii gabar heshood lagu ogaa gaatin soconaysa oon guriga dhaafaynin iyo gogosha reerkooda haddii aabba ganacsanahayaa gini ku raadsayo una garatay cadow guusha iyo guurka ka hor jooga kana dhigatay gacalkeed miday muuqi garanaynin sow garmaaha leylkii inay niman u guurayso gabadhaas hadday baaluqdee guur waqtigii gaadho oo kay la googoosatay geysa gurigooda lagu xiri inuu giirlo iyo geelu soo tiriyo asuu geel helayn dhaafsan wuxuu meher u gaar yeelay iyo biilka gurigooda oon laga garaabaynin guulana u qoray gaban inuu helo gayaankiisa sow garmaaha inuu wiilgayaa gabar masaafaysto iyadana haddii guriga uun lagu gumaynayo oo kay la goosana tiraa wow gar leedahay markii uu la guureeyo ee sheekh u geeyirina uu odaygii dabagelahayo guluf ku raacdayni oo uu go-aankiisu yahay aabbo gabadhiisa guumays haddii ay noqee boqolka gaaraysa guursan mee haddaan giirlo iyo geella ii tirinin asay xaylna gaarto oo dhibcihii dhiigu goboleeyo oo ay beri gashow hooya tahay ubad u goohoysa sow inay indhaha gedafto qariso giirkeeda oo ay masaafada gashaa maaha gedaheeda haddan guud ciroolaha taliyo waana garansiiyo gar waxaad u leedahay markay gabadhu qaangaadho inaad laba mid soo galo tiraa maandhay gacaleeya ii keeno gaban kuu dhigmo diinta gudanaya ama aabbo ani aan galo xologayaankaaga hadday goob tiraa aabbo waan kugu go-ayay adiga u gamba adduunya aad xera ku soo goydo ha u xilanin geelkii wato xila gubaageeda ee keen mid gaaridii dhashiyo aabbihiis godani iyo gabadha hooyadii dhashiyo adigan guuleeda waalidkiis idiin garanayoon idin garaafaynin oo goortu meel ka arkaba gacala soo booda haddii ayse gudanayso iyadu goobayso oo ay keento odayga murooguga ka sii weyna kana midase guurtida dalkiyo diinta garabkeeda iyadana qancaa goor walboy gacala raadayso adoon gool baldaa een garoor keliya goobgoobin adii hooyadeed geniya oo gacanta saaraya duca soo guddoomo ku dhaha gala arooskiina guuleediyo geniyay miyaydnaban garaabaynin gabadhiini geediya intay baaluqnima gaarin waalid gacalidiisii ahayd arigatii goobta oon qosolka kala goyninoo guudka dabanaysay balse taniyo goortay ilmiyo guur ahana qaaday sow gunuunuc muu imaan habaar ariga goobeeya iyo guduudane cunoon goosan laga waayin farxaddii wixii goofiyo siina gurinayay oo gubay oo goonina ka dhigay sow ma garataan gedkalaadba keenteen haddeer waadna gudubteeni isi soo galkoodiiya markay gaban lahaa saawi intaad sidii bahgaadadii indhaha hoos u gama xuurto ood wiilka gelisaan inaad gibir ka doonaynin gu' markii la joogiye bilooy umushi soo gaadho yaad gacan u soo hoorsataan inankii guursaayay ood gabadha soo dumi tiraan gaalka gurigiisa ama ubadka waan garabsanoon geli habaarkayga aan gabagabeeyoon murtida soo gunaanado
marka hore gabaatigaad cunee iibka gabadhaadu waa gibir canshuureed gabdhaha guudka laga saaray oo guurka ka hor joogsado guga ku weyneeya oo taranka gaasirahay oo ubad ka goynaya ee beriga laysgoobinaan godob ha sii qaadan oo adduunya waa gebangabe geli xusuustaada haddaad diididood giiratood gacanta taagayso ood oran gasiin bay xiriyo geela oo keliya dhankalaan gantaalka u ridaa una ganayay ninkii suuqa geeyee laxdii geniga soo siistay ee gadaal u saa laabtay ee garabka doonayay sidiisii hagees mari runtee laba midood soo gal inaad gabadha soo meerinood iga gadee maanta oo aad guriga keeya gelayn gooshkan dabadiisa oo aan kala gadoonon waddada gees u kala qaadno iyo inaad i guurinood xilkana guudka iga saari ood aabbahay geedii aad geda la joogayso